In Mogadishu for radio check. How do you read me? 4/5. Loud and clear. Thank you very much. Thank you. muddo ayay Soomaaliya marti ka ahayd maamulidda hawadeeda laakiin maanta waxay u hubisay inay dib u hanatay taas uu daafuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dib u hanashada maamulka hawada Soomaaliya waxay kor u qaadi doonaa ilaha dhaqaalaha ee dalku u leeyahay in ka badan 200 oo diyaaradood ayaa maalintii isticmaasha hawada Soomaaliya ma aysan jirin cid awoodday inay la xisaabtanto ama maamusha dhaqaalaha ka soo xarooda dawladnimada wanaagsan ay tani tusaale u tahay in Soomaaliya ay dib u maamulato hawadeedii markii ugu horeysay tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladda militariga qalabkan oo laga hago diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya ayaa awood u leh inuu maareeyo maamulka hawada dalalka baxsan Soomaaliya kaas oo ah qalab casri ah oo badankii ay sanaysan dunida saddexaad munaasabada daafurka dib u howlgelinta maamulka hawada Soomaaliya oo lagu qabtay xarunta hay'adda saadaasha hawada dalka ee Muqdisho ayaa ka soo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug wasiiro xildhibaano labada aqal iyo marti sharaf kale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay in dawladdu ay dadaal ku bixisay kamira dhalinta in dalku hawadiisa si madax banaan u maamusho waxaan rabaa inaad ogaatiin soo noqoshada hawada Soomaaliya keentay in laga soo guuro Nairobi wadanka gudihiisa laga maamulo nasiib uu jira laakiin accident kuma imaanin waxay ku timid dadaal iska kaashadeen wasaaradda iyo hay'adda dawladda iyo saadaasha hawada inagoo madaxdeena oo ku tirsan madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku hadlayay magaca dawlad goboleedka dalka ayaa sheegay in talaabadan ay ku xigto in shirkadii diyaaradaha ee Somali Airlines ay dib u shaqeyso waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay in hawadii ay maanta dib loogu soo laabatay aad iyo aad baan loo ka bohondumiyay marar badan waxay ku sigatay in la qaato marba hadda laga joogo waxaan u malaynayaa sanad wax ka yar 10 bilood marbaaba la yiri way socotay laakiin ilaahay la gacanteeda ku soo celiyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeeyaa maanta qarannimadii markii laba loo dhigay mid baa soo noqday waxa naga dhimanna waa inaan dib u raacnaa inta yaroo naga maqan waa doonan doonaa waana keensan doonaa wax naga dhimanaan doonaan ma jiraan waqtiyaal soo socda oo degdeg ah aad iyo aad baad u mahadsantihiin walihii ka shaqeeyey iyo maaragtay intii gacan ku siisay haddana waxaan rajaynaynaa sida civil aviation ku soo laabtay in Somali Airlines ku soo laabato madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay munaasabada dib u hanashada hawada Soomaaliya in laga hago dalka ayaa u mahad celiyay cid kasta oo gacan ku lahayd waxaana uu sheegay in dawladda ay ka go'an tahay in dhammaan xuduudaha badda iyo bariga ay la socoto waxa ka baxaya iyo kuwa soo galaya tan waa bilow oo ah inaan xoojino qarannimadeena inaan xoojino waxaan noogu xigi doonaa insha Allah oo aan gacan noogu jirin oo xaqiiqo ah inaan soo ceshano controlka badeena muddo kooban dhexdeeda aan soo ceshano oo aysan jiri doonin cid ku soo xadgudubta oo maxaan ku raada khayraadkeena maalin iyo habeen gurata inaysan jiri doonin cid istiraada meeshaan lama joogo ee waxaad ku shubtaan qashinka iyada naftigeeda waxaan rajaynaynaa haddii eebba yiraahdo iyadana muddo kooban muddo yar dhexdeeda inaan gacanteena ku soo celino oo ninkii ku xadgudba badeena aan sharciga adduunka aan marsiin doono insha Allah haddii la yiraahdo madaxweynaha oo xariga ka jira xafiiskan laga maamulayo hawada dalka Soomaaliya ayaa sheegay in hirgelinta dimuqraadiyadda la dagaalanka musuqa uu ka mid yahay waxyaabaha dawladdan ay rabto inay ku guuleysato waxaana ka codsaday mas'uuliyiinta dawladdu inay ku mashquulin khilaaf iyo habdhaqan qabiil oo uu sheegay in dalkan aanay waxba u soo kordhinayn waxaana mar kale uu gacan hatiyay kooxaha nabadda diidan inay hubka iska dhigaan Soomaaliya waa dhaqaaqday Soomaaliya way socotaa istaagi mayso ciidankii xooga ahaa ciidankii qalabka siday waa diyaarsan yahay maalinta ka dambeysana waa sii xoogaysanayaan waxaan idin sheegaynaa inaad ka baxdaan waxa aad ku jirtaan oo ah inaad xasuuqdaan ummaddiina iyo shacabkiina inaad ka tanaasushaan oo aad dib ugu soo noqotaan ummaddiina
oo aad qayb uga noqotaan horumarka iyo dhismaha dalkeena annagu waxaan ballan qaadaynaa sidii aan ku caddeennay oo aad markhaati laga yahay ciddii noo timaada oo soo dhiibta inaan siino wax alla waxay u baahan yihiin deganaansho iyo sharaf iyo xurmaba ciddii soo dhiibta oo hadda mar labaad aan ugu baaqayo maxaa yeelay waxaan ognahay ciidankeenu inuu hadda u diyaarsan yahay shacabkeenna u diyaarsan yihiin inay dib u soo ceshadaan qarnimadooda inay dib u soo ceshadaan dalkooda iyo dadkooda waxaan ugu baaqayaa mar kale qolooyinkan shabaabka ah inay ka soo noqdaan waa la mara hagaamiyey waa dhallinyaradeenni weeye waxba ha ka walwalina waxaan idiin sheegaynaa inaad dib ugu soo noqotaan ummaddiinna taasoo aad ku helaysaan nolol iyo karaamo iyo xushmo cali baasha cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada muqdisho